waa kaliskii Afrikada dhexe waa baxalkii una hilbaha dadka kaasi oo aan si qarsoodi ahayn u sheegay inuu aad u macaan badan yahay hilibka dadka maalin kale ayuu soo galay diinta islaamka kuna jiray sidoo kale Anwar Saadaadkii Masar ayuu xiriirka ugu jiray sabab aad loola yaabay sidoo kalena waxa uu khiyaamay Muammar al-Qaddafi Liibiya haddaba waa kuma qofkan inta aynaan muuqaalkeena u gudagalin waxaan ka codsanaynaa inaad like saarto muuqaalka lana wadaagto asxaabtaada si ay u gaaraan saaxiibo badan mahadsanid muuqaalkeena maanta waxaan kaga hadli doonaa sida ay ku bilowdaan kuna dhamaadaan kalisyada qooqa halkan waxaa ka socda xaflado iyo qoobka ciyaar ka dhacaya albaabka aqalkii madaxtooyada ahaa ee uu ka cararay Bedel Bokassa waxa uu xukumi jiray Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe intii u dhaxaysay sanadihii 1966 ilaa 1979 Bedel Bokassa waxa uu ahaa askari hore oo ka tirsan ciidamada Faransiiska qabashada awoodda iyo xukunka ayuu ugu xaraadanaa si waali ah sidaas awgeed waxa uu hogaaminayay falaago iyo jabhado dagaal ku hayay dawladda waddankaasi markii uu xilkii iyo taladii Afrikada Dhexe qabtayna waxa uu isku boqoray madaxweynaha jira ee joogi doona weligiis bishii ugu horeysay ee xukunkiisa waxa uu isku taxay iskuna xarqiyay bilado iyo xidigo gaaraya 10 waxaana ku filnaan waayay in loogu yeeray darajada madaxweynaha sidaas darteedna waxa uu go'aansaday inuu u dhaqmo sidii uu u dhaqmi jiray boqorkii iyo askarigii uu jeclaan jiray Louis Napoleon sidaas darteed Jamhuuriyaddii Afrikada Dhexe waxa uu u rogay boqortooyo isagiina waxa uu isku caleema saaray inuu yahay boqor aan dhicin Bokassa waxa uu dhigtay xaflad uu ku sheegay in isaga dabadii la dhigi doonin 4 meelood meel ka mid ah miisaaniyadii dalkaasi waxa uu ku qarash gareeyay xafladaasi sanadkii 1977 Bedel Bokassa madaxa waxa uu saartay taaj ka samaysan dahab oo uu ku fadhiyay $5 milyan ul dahab iyo xariir isugu jirta taasi oo ay gaarayso 5 kilogram ayuu ka dhigtay gacan qabsi waxa uu samaystay kursi dhamaantiis dahab ah ilaalo iyo kolonyo boqortooyo Bokassa waxa uu ahaa nin wax walba ku talaxtaga xitaa guurka iyo dhasha waa ninka kaliya ah ee haystay madhabka Kaatooliga ee guursaday dumar aad u fara badan caruurtiisi waxa ay gaareen xeer ay isaqoon waayaan Bedel Bokassa waxa uu ahaa kawaanle weyn oo qoorta ka gura mucaaradka asiga ka soo horjeeda golaha wasiirada xukuumaddiisa ayuu u sameeyay cashi sharaf kadib markii ay ka dhirgeen cuntadii ayuu u sheegay in hilibka ay cuneen uu yahay wasiir ka tirsan xukuumaddiisa inkasta oo uu qiyaamay Bedel Bokassa waxa uu taageero dhaqaale weydiistay Muammar al-Qaddafi hayeeshee Qaddafi ayaa faray inuu qaato diinta islaamka si uu ugu furo qasnadihiisa ee waagaas lacagta ka buuxday Bokassa isagoo u danlay qaadashada lacagtaasi ayuu qaatay diinta islaamka magaciisana waxa uu u bedelay Salaaxudiin Axmed Bokassa balse isla markii uu ka gudbay xadka Liibiya isagoo si boostooyin lacag iyo dahab isugu jira ayuu ku noqday madhabkiisii Kaatooliga ahaa Bedel Bokassa gaari faraskii boqorka Ismaaciil ama Qadawa Ismaaciil ayuu weydiistay Anwar Saadaad si uu uga xayeysiiyo xaflad uu isaga dhigayo boqor laakiin waxa uu kula kulmay jawaab aad u yaab badan Saadaad waxa uu diiday dalabkaasi sidaas awgeed Napoleonkii Afrikada Dhexe xiriirka ayuu u jaray Anwar Saadaad waxa uu ku noqday dalkiisa asigoo aad u areysan boqol arday ah ayuu toogtay qaarkood waxay ka hooseeyeen da'ada 15 jirka dambiga kaliya ay galeen ee loo xasuuqay waxa uu ahaa inay diideen xirashada dharka kaliya ee Bokassa u yaqaanay inuu mideynayo dadka Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe oo dhan aad naqaali u ah oo ay soo saarto warshad ay lahayd mid ka mid ah xaasaskii Bokassa markii bahalnimadii gaartay meel aan xuduud lahayn ciidanka xoogga dalka ayaa u dhaqaaqay in 5 farood iyo calaacan looga tuuro xukunka madaxweynihii Faransiiska ee xilligaasi Valéry Giscard ayaa u diray Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe cutubyo gaar ah oo ka tirsan ciidamada Faransiiska cutubkaasi oo kaashaday ciidamada Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe oo qudhiisa Faransiiska gacanta ku hayay ayaa taladii ka tuuray keligii taliyay Bedel Bokassa waxaana loo musaafiriyay isla Faransiiskii talada ka tuuray halkaas marka ay taagan tahay Bokassa khiyaanadii lagu sameeyay awgeed waxa uu ka caarsaday madaxweynihii xilligaasi ee Faransiiska Valéry Giscard si kale uma taqaanide 2 iyo eber ayuu Bokassa diray Valéry Giscard
ee madaxweynihii Faransiiska ee xilligaasi. Bokassa waxa uu warbaahinta la wadaagay dukumeentiyo iyo sawirro muujinaya dahab iyo macdan ciid ka badan oo intii uu boqorka ahaa hadiyad ahaan ugu diray Valéry Giscard Faransiiska. sidaas daraadeed Giscard waxa uu sidaasi ku waayay in mar labaad loo doorto madaxweynaha dalka Faransiiska. qaxooti iyo nolol xumo dheer kadib Bokassa dalkiisa ayuu dib ugu soo noqday, waxaana lagu xukumay dil toogasho ah. kadib xukunkaasi waa la khafiifiyay, waxaana laga dhigay xabsi daa'im ah. maxkamadii ku riday xukunka dilka ahaa waxa uu u sheegay in Bokassa isaga isku difaacaya eeda inuu cunay hilibkii dadkii ay isku hayeen siyaasadda qaarkood, inuusan jeclayn cunida hilibka dadka laakiin uu aad u macaan badan yahay hilibka dadka. garsoorayaasha qaarkood ayaa dib uga joogsaday kuridida xukun dil ah. Bokassa ha yeeshee intii badnayd ee ku dooday inuu sheegi karo macaanka hilibka dadka kan cunay oo kaliya oo uu garan karo macaankiisa iyo qaraarkiisaba. sidaas darteed waxa uu mutaystay xukun dil ah. boqorkii maxbuuska ahaa ee Bokassa waxa uu ku soo baxay afis guud oo la sameeyay sanadka markuu ahaa 1993 kadibna waxaa lagu xukumiyay xabsi guri ilaa uu ka geeriyooday sanadka markuu ahaa 1996 muddo uu ahaa madaxweyne aan dhicin oo kaligii talis ah, ku qabaystay dhiigga shacabkiisa isla markaana ku raaxaystay kalitalisnimada. alla maxay murugo iyo xoog xambaarsan yihiin sheekooyinka shucuurta saboolka ah oo ay madaxda u yihiin jaahiliin kaliya talis isku bedelay. intaas ayaan muuqaalkeena maanta ku soo gabagabeyn doonaa. haddii aad dhamaysatay muuqaalka waxaan ka codsanaynaa inaad like saarto muuqaalka si uu u gaaro saaxiibo badan. mahadsanid.